السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا كحرن جنرال كينا جنرال كحكمة تيوب يوتيوب سودو هذا مقال عصب بدنا كبحث شذا حبسيدو وأرمها ugu badan ay saxaafadu raadiso lagana diyaariyo dokumentiyo badan filimaan badanna laga diyaariyay sheekooyinka noocaasna waa kuwa soo jiida boqolaal qof oo ku kala nool daafaha dunida waxaana wada ognahay qofka xabsiga ku jira maskaxdiisa wax kale inayna ka gooxayn aan ka ahayn sidoo uga bixi lahaa xabsiga laakiin adiga waxa ugu dambeeya ee ka fikiraysa ayaa ah sidoo askari u diyaarin kara qorshaha uu kaga baxsadsiinayo qof maxbuus xabsi waliba marka loo sii eego mid ka mid ah dawladaha ugu cabsida badan North Korea daqiiqadaha soo socda waxaan ku wada arki doonaa hawlgal baxsi oo uu fuliyay askari ilaalinaya xabsiga ay ku jirtay gabadh maxbuusad ahayd laakiin inteenan u guda galin waxaan rajaynayaa inaad muuqaalka like saarto xagga channelkana subscribe ka saarisid iguna dhiirigeli adigoo soo qoraya comment qurux badan qisadeenu maanta waxa ay ku saabsan tahay askari iyo gabadh maxbuusada waana arin aan laga niyeysanayn lana rajaynayn inuu ka dhici doono North Korea mar labaad iyadoo askariga lagu magacaabi jiray John gabadha maxbuusadana lagu magacaabi jiray Kim waxa uu sheegay John iyadoo wareysi laga qaaday waxaan ka soo boodnay daaqada iyadoona si fiican anigu u kala garanayay xabsiga laakiin nasiib darro waxaa nagu yeedhay gambaleelkii xabsiga Kimna waxa ay dareemaysay xabsi badan waxaana soo hogaanay 200 mitir waxayna ahayd inaan isku tuurno webiga Tomin uma maleynayna ayuu iri inuu webigu sidaa u dheer yahay waxaan sitay xabad yar waxaana ku daray dhanka kale Kim ma ayna ahayn mid garanaysa dabaasha waxaanan waqtiga ku soo badbaadnay mucjiso rabbaaniya iyadoo ay u maleynaysay inay naftu kaga bixi doonto webiga dhexdeeda laakiin nasiib wanaag waxa uu yiri ma aan isdhiibin waanan ka soo baxnay waxaana qisada ku soo bilaabay waxaan ahaa askari ka shaqeeya xabsiga soke iyadoo uu ka waday waxaan ahaa askari ka shaqeeya marka dadka la soo qabto intaana loo gudbin xabsiga weyn ee xukunkoodu dhicin waxaan ahaa mid ku soo dhaweeya xabsiga anigoo ka ilaalin jiray dadka inay baxsadaan ama naftooda ay halis geliyaan 100 qof ayaa meesha joogay 50 qof wajiyadooda waan la qabsaday iyadoo lagu soo qabtay daroogo ama in ay wateen aaladaha filimaanta lagu duubo ee sharci darro loo soo galiyo wadanka hadii aad fahansanayn inta aan ku yar sharaxo wadanka North Korea waxaa ka mamnuuca inaad ku daawatid filim lagu soo jilay wadan aan ahayn sidaa darteed hadii lagu qabto flash ama telefoon ama wax walba wax lagu shubto oo filimaan ama heesa ay ku jiraan waad xukuman tahay waana sharci u yaala wadankaas dhanka kale hadii aad qof disho waxaa laga yaabaa in lagu xukumo wax 3 sano ka bilaabma ilaa 4 sano u dhaxeeya laakiin hadii lagu qabto adigoo filimaan ku sita flash si sharci darro u wata waxaa laga yaabaa in lagu xukumo muddo u dhaxaysa 7 sano ilaa 8 sano oo xabsiya adiga kaliya ma aha waliba xitaa qoyskiina way kula ciqaaban yihiin oo dambi hadaad gasho waxaa la idinku fulinayaa qaab wadareed waxay u yaqaanaan hadii lagu qabtana adiga qof badbaadinaya iskuna dayaya inaad ka saarto North Korea waxaa lagu dirayaa xabsiga ugu weyn wadankaas wixii kugu dhac doonana Ilaahay unba garanaya Kimna waxay sheegtay inta uuna xukunkeedu dhicin inay ahayd markii labaad ee ay soo gashay xabsiga inta ay nooleed weligeed waxayna tiri waxaan isu maleynayay in lagu xukumi doono wax u dhaxeeya 2 sano ilaa 3 sano intayna xabsiga kale lay gudbin waxaan isbaranay John oo ah askarigii ugu fiicnaa waqtigaas Johnna waxa uu yiri markii la weydiiyay sida isku haydeen adiga iyo maxaabiistu waxa uu yiri waxaan isku ahayn sida dhulka iyo samada isagoo ka waday waxay noogu yeedhaan mudanayaal wajigayagana ma soo eegi karaan laakiin John ma ahayn mid sidaa sameeya ay sameynayaan askarta kale oo waxa uu ahaa mid aad u daryeela Kim ka warqabana inayna gaajoonayn xitaa waxa uu siin jiray dawooyin muddo ay xanuunsanayd oo ku jirtay xabsiga waana sababta dib u dhigtay in xukunkeedu soo degdego laakiin waxa uu yiri mar walba waxa iska ilaalin jiray inay indhaha igu dhacaan askarta kale anigoo wax dheeraada ama daryeel u muujinaya Kim waxaana saa u sameyn jiray maslaxadeeda si aan looga shakin loogana bedelin meesha ay imika joogto laakiin waxa uu yiri marka aan kaligeenahay waxaan ugu yeeri jiray magacaan la baxay oo ahaa Nuna anigoona ka khafiifin jiray walwalka haya una sheekeyn jiray waqtiga la qaadan jiray maalintii xukunkaygu dhacayna anigoo filaya in lagu xukumo 2 sano waxaa lagu xukumay 4 sano iyo waliba badh waxayna ahayd maalintii nolosheeda ugu xumayd laakiin John waxa uu qanciyay inaan iskaga baxsano xabsiga waana xalka ugu dhow ee ay sameyn karaan waxayna tiri maritaanka xuduudda labada Korea u dhaxaysa waa cuqubaha ugu adag ama ciqaabaha ugu adag ee bini aadan ay mariyaan North Korea
qalbigaygii iyo wadnahaygina waxuu bilaabay inuu aad ii garaaco. Waxayna tiri waa go'aankii ugu adkaa uguna geesisanaa ee qaatay inaan noolaa, anigoo isku dayay inaan nafta isdhaafiyo. Iminka Kim iyo John waa laba dambiilayaal ka ah North Korea. John waxa uu yidhi kama cabsanayo inay i disho North Korea ama ay gacanta igu dhigto, laakiin waxa cabsida ugu weyn igu haya waa qoyskaygii aan ka imid. Aanan garanayna waxa ku dhacay iyo meel ay ku dambeeyeen. Sidaan wada ogsoonnahayna qofkii Korea dambi ka gala dhammaanteed dambi ayuu ka galay, macnaha qoyskaagoo dhan waa dambiilayaal. John iyo Kim iminka waa kuwa Mareykanka iskaga nool si nabada. John uu shaqeeyaa xagga Kimna ay ka wadato waxbarashadeeda, waxayna rajaynayaan in nololtaa ka sii fiican ay ku sii noolaadaan, sii dadaalaanna. Iyadoo Kim intaa ku dartay, waan rajayn lahaa inaan qoyskayga la noolaado ama marun aan arko, laakiin waxaan hubaa inayna taasi dhacaynin. Mana rabin inay noloshani ii dambayso, laakiin waa ay dhacday. Muuqaalkeena maantana intaas ayuu ka eg yahay. fadlan haddaad channelka ku cusub tahay subscribe saar, videogana like saar. Intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa